بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام أخيات الشرفت الله حلك استوئذين تهي وعنو ونكسان ومركز المقال عصب مع المهن مشغول يرجع أويس يعني كما قلناي تاسنو إذن كرال قلنا ما أنت موضوعي نحوك سابسين هاي حبين ترقى محاجة العيوم محاسن لقو الداوية سؤال شانيت وحين سويدي أصحابتي أنا متكمد إيه وحنجي على سنة أنا وصول جوابنا مقال وصول منه نفضل هذا القناة كعصبتي سبسكرايب وصال هذا حولي إنه رجعت نسودوان كلين هاي محاجة العيوم أما محاكي نحبين ترقى إني جلع نقطة maxaa lagu daaweeyaa ninka marka uu galmada badsado waxa ka jilca geedka marka uu geedkiisa jilco naagtiisa ma dareemayso raaxada ay rabto waayo naagta waxay u baahan tahay xubinta marka ay adag tahay sheekadu ma aha geedka ninka inuu dheeraado ama uu weynaado waxa muhiim ah inuu geeska ahaado ama geedku ahaado mid adag aan dameynin marka galmada socoto waayo marka uu damayo xilliga ay galmada socoto xaaska ma helayso raaxada ay u baahan tahay sidoo kale ninka marka uu dhaqsi u biyo baxo naagta ma gaarayso meesha ay rabtay oo raaxada ah haweenka Soomaaliyeed aad bay u xishoodaan ma sheegan karaan marka ay rabaan inay la galmoodaan taasna waa laga fiican yahay ninkaaga waa xalaalkaaga marka waxa laga rabaa inaad u sheegato waxa aad u baahan tahay waxa kale oo jira marka uu geedka ninka sidoo kale noqdo waxa kale oo jira marka uu geedka ninka sida noqdo ma jirta daawo lagu adkeyn karo waxa laga rabaa inaad kala fogeyso waqtiyada aad xaaskaaga u tagayso sidoo kale waa inaad basataa cuntadan soo socota ukunta basasha caanaha xulbada jiljilka basbaaska hilibka qoolleyda hadii aad heli karto malab iyo jinsiga aad bay u fiican tahay awoodda raaxada galmada waxay u noqotaa caafimaadka qofka siiba caafimaadka wadnaha qofka inuu saliita ku fashilmo waxa ku keena mararka qaarkood cabsi iyo kalsooni la'aan xaaska haweenka ugu horeysa waxa laga yaabaa inaad ka baqdo raga qaarkii way cabsadaan haweenka aqalgalka sida awgeed waxay u maleynayaan inaysan galmo sameyn karin hadii qofka xaaladda noocaas ah muddo badan ay la soo gudboonaato waxa fiican inuu isbaaro oo caafimaadkiisa guud ahaan hubiyo dumarka dhaqsi ayay u nacaan qofka sariita howlgab ku noqda naagta xun waxaaba laga yaabaa inay ninka kale la sameyso gogol dhaaf ama raaxo kale halis ayay idin keenaysaa adduun iyo aakhiraba sidoo kale waa soo aragtay dhibka ay leedahay naagaha ama gabdhaha arrinkan la kulmaan dib nafsi ay galaan xaaladu nafsi ay galaan sidoo kale ka fogow kaniinka kacsiga ama dareenka waayo dib ayuu ku keenayaa mustaqbalka kaniimada iyo waxyaalaha la isticmaalo oo falka inay ku fududeeyo ama xubintii ay ku shaqeyso isticmaalayso mustaqbalkaaga ay dib ku keenaysaa yaa ka fogaatan isku day قبل أن أترككم سبسكرايب للقناة مقاطعة لايك وصالح وبين فيديو حلو والسلام عليكم